kulanti wanaagsan barnaamijka aanu ku soo bandhigayno taariikhda magaalooyinka ugu qadiimsanaa ee Soomaaliya ama archaeologiyada Soomaaliya waxaynu qaybtiisa afraad uga warrami doonaa Raas Xaafuun ama Xaafuun sida tixanihii hore aynu uga soo warannay boqortooyadii Majeer ee ka arriminaysay deegaanada dhaca gobolka Bari ee Puntland iyo magaalo lagu magacaabo Isku Shuban ee kamid ah deegaanada ku yaala gobolka Waqooyi Bari ee dalka Soomaaliya anigoo Cabduqaadir Maxamed ayaa soo saaray idilana socodsiinaya intaynan u gudagalin faahfaahinta barnaamijkanaga maanta aynu uga warramayno Raas Xaafuun iyo taariikh qadiimi ah ee aanad adigu ogeyn ee aad la fajici doonto markaad ogaato hadday tahay markaagii kuugu horeysay aad ina soo booqato subscribe saaro channelka si aad ula socoto macluumaadada xiga ee aan soo gelin doono maalmaha soo socda Raas Xaafuun ama Xaafuun waa magaalo ku taala gobolka Waqooyi Bari ee dalka Soomaaliya waxaa loo aqoonsaday inay tahay dekadii hore ee ganacsiga Obon ama ganacsiga Obone ama Obon waa magaalo qadiimi ah ee ku taalay geeska Afrika magaaladan waxa ay ku tiilay dhulka beeyada iyo uduga ee Buntu ee imika loo yaqaan Puntland magaca Buntu ayaa ka yimid boqortooyadii hore ee ka arrimin jiray Masar sidaas darteed Soomaalida ayaa ka mid ahaa faraacintii ugu waaweynaa ee awoowayaashanada aynu ka soo faracannay ee ka arrimin jireen Masar Raas Xaafuun waa magaalo qadiimi ah ee leh dhismayaal qadiimi ah ee burburay 1970kii ayay ahayd markii deegaankaasi laga helay farshaxano qadiimi ah ee dhagaxaantii muddo badan ay reer galbeedku baadigoobayeen taas oo ay u sahashay badankooda inay Afrikada qadiimiga ah ay ka qaataan Afrikada waa hooyadii adduunka taas oo ilbaxnimadii dunida ay askunu ahayd muddo imika laga joogo 8 milyan oo sanadood dadyowga adduunka ayay hooy u ahayd qaaradani Afrika ee imika dadkeedu yihiin kuwo sabool ah sidoo kale magaaladan ayaa waxaa qalcado ku lahaa boqortooyadii Majeerteen Buntu waxa ay sidoo kale ahayd boqortooyo qadiimi ah ee Masar imika taariikhyahanada Masriyiinta ayaa aaminsan in dhulka kaliya ee ugu casrisan Soomaaliya ay tahay taariikh sugan gobanimo dhaliya nasabdu xajira mararka qaarkii Buntu ayaa loogu yeedhaa Tanat Jeer oo af Soomaaliga turjumaadiisa u dhiganta dhulkii Ilaah Puntland ayaa la aasaasay 1998kii oo magacan Puntland ayaa loo bixiyay laakiin magaca asalka ah ee dhabta ayaa la oran jiray Buntu ama Tanat Jeer oo ah magac qadiimi ah ee isticmaali jireen boqortooyadii Buntu ee ka arriminaysay Masar iyo dhulal badan ee ku teedsan geeska Afrika xukuumadana ay u noqotay waana halka kaliya ee ay dhamaadka u tahay geeska Afrika sida la tixraacay meel loo dhan yahay oo lagu dhan yahay istixgaalin bulshada dhabti waa Puntland socdaalkii hore ee Masaarida ee uguna horeeyay lagana diiwaangeliyay ayaa abaabulay fircoonkii ka talan jiray Masar Fircoon waa ereyga qadiimiga ah ee loo isticmaalo boqortooyadii Masarta ka talan jiray Fircoon Saxure ayaa ahaa ninkii diiwaangeliyay socdaaladii bilowga ahaa ee Masar ilaa dhulka imika ee maanta loo yaqaano Puntland intaa kadib waxaa jiray socdaalo badan oo loo galay buntidii 6aad 11aad 12aad iyo 18aad ee boqortooyadii Masar boqortooyadii 12aad ganacsiga Puntland waxaa loogu dabaaldegay suugaan caan ah ee ku jirta sheekadii badmareenkii doontiisu burburtay sheekadan waa socdaaladii boqortooyadii dhexe ee Masriyiinta sheekadu waxa ay ku bilaabataa raacay ama badmaac kaas oo ku dhawaaqay ama sheegay inuu ka soo laabtay socdaalkii badda waxa uu la soo noqday
duulaan muuqda oo fashilmay waxa uuna ka walaacsan yahay sida boqorka u qaabili doono ama boqorka wixii uu ku baxay ee lagu ogaa oo uusan weli gaadhin halkii laga rabay mana garanayo wixii uu ku oran lahaa boqorka sheekadani waa ay dheer tahay laakiin qaybteeda hore ayaan soo qaatay udug nabaday dhisteen nabada uwadka dhuludug nabada uwadka dhuludug nabada uwadka dhuludug tani waxa ay tilmaamaysaa xaqiiqda ah buntu inay ka mid tahay gobolada qorax ka soo baxa dhulkan ay masaarida hore ay lahaayeen ama faraacinta Soomaalida dhalay ama ka soo faracmeen waxa ka mid ah wax soo saarkiisa fooxa ama dhirta uduga taas oo loo iibkeen jiray macbadyada inta badan ra'yiga buntin ee waqooyi bari Afrika iyadoo ku salaysan xaqiiqda ah in wax soo saarka buntin sida lagu sabiray sabirada farshaxanada leh ee geeska Afrika ay si aad ah uga heleen laakiin ay ku yar yihiin ama mararka qaarkood ay ka maqan yihiin carabta kale dhaqan soo jira boqortooyo dheer dhalyo jecel xigtada waxaa dhulkan laga dhoofin jiray dahabka fooxa udgoonka leh sida malmalka buntin ama tanadjar imika loo yaqaano Puntland waxa ay sidoo kale lahayd keen ay ku noolaan jireen xayawaanada ka mid ah gariga iyo shabeelka barnaamijkayaga taariikhda qadiimiga ah ee dhulka Soomaaliya halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa qaybtiisa afraad inta aynu qaybtiisa shanaad aynu kaga kulmi doono maalinta xigta waxaan idinku dhaafayaa inta ka horeyso nabadgelyo haddii ay tahay markaygii kuugu horeysay aad ina soo booqato rukumo janalkan si aad ula socoto macluumaadyada xiga ee taariikhda dunida ku saabsan iyo Afrikada iyo Soomaalida anigoo Cabduqaadir Maxamed ayaa soo saaray barnaamijkan idinlana socodsiinayay waxaan idinku dhaafayaa maalin wanaagsan dhaqan soo jira boqortooyo dheer dhalyo jecel xigtada